biyaha qabow dadka cudurrada qaba il iyo sixir iyo jin hadduu ruuxu qabo inuu ku dadaalo inuu biyaha qabow ku maydho waa dawo mujarrab weeyaan oo quraanka kariimka sheegay laakiin cid walba marka inay isticmaasho ma ahan waa in marka hore aanu ruuxani qabin xanuuno qabowga kullid ah مثلا qofku hadduu asma qabo kale ama rheumatism oo kale hadduu qabo ama ay dhaxani ku jirto waxaan kolba aariyada aad tirahdaan oo kale kuwa yowga hadduu ka badbaado qabo dariiqa ugu sahlan ee lagula dagaalamo isha iyo jinka iyo sixirka waa biyaha qabow oo lagu maydho waxna laga cabo haddii biyo qabow aroorta hore aad ku maydhato oo duhurkii ku maydhato oo habeenkii ku maydhato biyo qabow way aad iyo aad bay ugu neef qabatoobaan shayaatiintu manax iska xajin karaan waxaa markaa suurtagala muddo yar haddii aad dawadaa wado in aad ka guulaysato cadowgaa ku soo weeraray ee dhibaatada kugu haya waa masalo aad loo tajribeeyey biyaha qabow ku maydhashadoodu inay daawo ka tahay mas shaytaan rabbi innii massaniya shaytaanu binusbin wa cadaab kharash badanna kuguma fadhido wadaadaad u tagtana uma baahnid marka inaad biyaha qabow aad laasimto inaad ku maydhato aad iyo aad bay kuu anfacaysaa ha laga warhayo haddii alla yidhaahdo